Now people are asking us, I want to give a gift to this man and to that man. Can I give a gift? It is the occasion of Christmas. And I want to give a Christmas gift to my friend. And taking part in such celebrations. Now these celebrations like Christmas, Easter, Diwali, they aren't just any old rituals. تضوي لبعضن كيساس هيد وحاس وح شرع الإسلام كوقبة وبنية ما بقى هبارين تأيدا لأنه أمد نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمد وبرنجري. You cannot say Merry Christmas, not even if an alien came and he told you, you cannot even say to him and say he's just an alien, I'm never going to see him again, he's not going to tell anyone. No Merry Christmas, not from a Muslim. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. halkani waa SWS show waxaa maanta stuudiyaheena marti noogu ah Sheekh Cabdiweli Xuseen. Sheekh Cabdiweli Xuseen waxa uu kamid yahay culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Houston. Sheekh waxaan maanta su'aalo ka weydiin doonaa waqtiga hadda lagu jiro oo sanadkooda bayaaqa ah iyo waxyaabaha daafaha dunida ka dhaca. marka sidaanu ognahay arbacadii aynu soo dhaafnay waxa ay ku aadanayd Christmaska waqtiga dadka gaalada ama masiixiyiinta ay u dabaaldegaan dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. arbacada soo socotana waxay ku aadan tahay sanadka cusub taariikhda milaadiga. marka Sheekh Cabdiweli marka hore ku soo dhawo SWS show. waa mahadsantahay insha Allah jazakallahu khayr. Sheekh marka hore waxaan ku weydiinayaa sanad wal markii waqtigan oo kale la gaaro adduunyada meel walba waxaa looga dabaaldegaa dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. marka diinta islaamka ma wax sal ku leh miya mise waa wax mataqaana ay dad iska sameysteen oo dhalashadii Nabi Ciise waxaa dadka qaar ay sheegaan waqtigii ay ku aadaneed inaan maartay aan la hubin. marka Sheekh arintaas faahfaahin nooga bixi. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. أما بعد waxaan rabaa walaalaha muslimiinta inaan u sheego ciida masiixiga ama ciida loo dabaaldegaya Ciisa ibn Maryam laysa laha taariikh fi al-islam in loo dabaaldego horta. maxaa yeelay islaamku wuxuu jideeyay laba ciidood oo sharciyan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyay oo uu ku bedelay ciidaho dhan buu ku bedelay waa ciidul adha wa ciidul fitr wey. wax ka soo haray oo loo dabaaldegayo كائن من كان عدو دوني هذا إن لو وينيو ومالين كسو هاري مالين كان لو دبالدغو شرع الإسلام كما شيغي منا هينو دليل ده إلا حدا ولا نبي محمد حتى الله سما احتفال حتى ما هينبا اسكدا في نبي عيسى تذا كلام دد waxaa sameynaya ciisaha nafsadiisa aan u aqoonsaneen rasuul ba oo aqoonsan inuu yahay ibn Allah qaar ku dhahay waa wiil ilaahi. marka in lagu daydo dadka ayagana هذه waxay keenaysaa marka taqliid ulama raacitaan in dhalaan ah oo la isaga dhagay oo islaamkii qofku uu ka jiha wareeray ay keenaysaa qofka islaamkana shaqaba kuma la arinta iyada ah inuu ka gaabsado oo ilaahigiisa uu kaga xishoodo kaga cabsado ayaa loo baahan yahay. marka ciidaha la ogol yahay waa labada ciido sharciyan fi islaam diintanada ay jideysay hatta nabi ciise waqtigiisa ciidahan ma jirin hatta ma jirin taariikhda uu dhashay dhahana way ka been sheegaan taariikh saxiix ba ma baahaba. وبالله التوفيق. Sheekh su'aasha kale ku weydiinaa waxay tahay gaalada hadii dabaaldegooda aad kala qayb qaadan laakiinse markii aad la shaqeynayso sidoo kale waxa laga yaabaa inay hadiyad ku keenaan oo ku dhahaan waa Christmas present waa hadiyad Christmas. marka adoo qof islaam ah ma banaan tahay inaad ka qaadatid hadiyadaas oo aad ka gudoontid? ma banaano laana maxaa yeelay shaygani waa shay lagu weyneynayo diin ahaan loogu talagalay in ummadda muslimiinta nafsadooda ay ku fasahaadiyaan gaaladu laana maxaa yeelay shaygani sameyntiisa asal ahaan ma banaan yahay wey ilaa wixii banaan ba asal ahaan wixii u banaan baa la raaci karaa laana Ciise in loo sameeyo dabaaldeg yaaba xaraan aba adiga muslimka in marka lagu invite gareeyo lagu yeero ama hawshaas ka qayb gal lagu yiraahdo ka qayb gashina waa dambi kale weeyaan laana Ciise nafsadiisa marka waxaad ka aaminsantahay inuu yahay ilaa ficilkii waad ku dhacday. أما القول وإما الفعل مدن بعض وجود عاد هذه المركز هذا قولها قولها وجود عنا فعلها بعض وجود عيسى أما نيد هذا فعل قدرت لكن وحي ودحتها كانت الدنبجي
waad kala qayb qaadato waxaad ayagii waad ku raali gelisay hadii xadiis saxiixa wuxuu ahaa ilaahay qofkii ku raali geliya ummadda caradooda ilaahay baa jeclaanay ummaddan waa jeclaanaysa laakiin qofkii ilaahay ku raali geliya carada dadka ilaahay waa u caroonaya waxana caradiisa qofkii ku raali geliya dadka oo ilaahay ka careysiya ummadduna waa nacaysa ilaahna waa u caroonaya marka insha Allah ta'ala arintaas ayada muslimiinta inay ka digtoonaan bal raba dadka khaasatan shaqeeyo shaqaalaha kale arinta waa ku kadsoomaan waa iskala cunaan maalinka xalfadaha dadka aan aad diinta ugu dhaqanaynin arinta in laga digtoonaada fiican wabillahi tawfiiq sallallahu ala muhammad sheekh mid kale dhinaca hadii aan aadno sanadka cusub oo kale saan ognahay daafaha dunida meel walbo ha ahaato xataa bulshada Soomaaliyeed waxa ka dhaco xaflado dabaaldegyo ka dhaco waxaa maqlaysaa maanta waxaa jirto xafladii sanadka cusbeed fanaan baa maaragtay la martiqaadaya meeshii habeenkii oo dhan baa la soo jeedaya ilaa salaadii subax marka qofkii meeshaas waqtigiisii muhiimka ahaa intuu salaatul leil tukan lahaa mise laga yaabo waqtigii cishii inuu ka tago mise salaadii subax hadduu meesha uu for oo mise afarta habeenimo kale uu kasoo tago uu markaas seexdo oo salaadii subax saas uga tagto duhurkii mataqaana laga yaabo inuu marka sidoo marka qofkaasi maxaa xukunkiisa muxuu noqon karaa qofkaas waa dambi buu ku dhex jiraa inuu ka toobad kanaan loo baahan yahay dambi kabiira waliba inuu ku jiro toobad u baahan weey laana maxaa yeelay qofkii nusuus saxiixa waxay leedahay qofku inuu ku soo joodo cibaado ama inuu ku soo joodo shaqo ilaahay ugu dhaweynaysa ama shaqo uu reerkiisa u shaqaysanayaba xataa oo xalaal ah laakiin inuu ka waqtigiisa uu ku dhameeyo heesuhu hadda sidoodaba xaaraan u yihiin muusiga markii la garaaco lagu daro culimada islaamku waa diideen oo hadda wadaad baneeyo lama hayo heesaha hal la sameeyo wamaca dalika haddana waxaaba kasii daranba in loo soo joodo happy new year iyo waa habeenkii sidaan ahaa iyo waa habeenkii muxuu ahaa 27 saas ahayd waxaas wax sharciga islaamka uu qabo uu baneeyay maba ahaba arinta ayada laana ummad nabi maxamed alayhi salatu wasalaam ummadda waa baraarin jiray waa toosin jiray cibaadaduna ku toosin jiray salawaatu rabbi wasalaamu alayhi saxaabaduna saas ahayn salafu saalixna saas ahaayeen taabiciintii atbaacu taabiciintii dhammaan ummadii salafka ahayd sidaas ay ku dhaqan jireen cibaadada waa la isku baraajiyaa waa la isku toosiyaa laakiin in wax ilaahay ka soo haray lagu soo joodo hadii waa dunuub waaweyn dunuubtaasna in laga toobad keenay u baahantay ummadaas ayadana waa uga digaynaa ilaahay god inay kaga xishoodaan waqtiga ilaahay la caabudi lahaa waqtiyada u fiican cibaadadu waaba niska dambaba in niska dambe macnaha lagu baabiyo wax ilaahay ka careysiinaya hadee dabal dambi bay ku noqonaysaa arinta ayada billahi tawfiiq jazakallahu sheekh su'aashaas hadii mid kale aan ku daro sheekh waxa la yiraahdaa xaflado oo kale markii ay dhacayaan haweenkii waxa lagu galaa $40 ilaa $50 oo kale sidaynu ognahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan wadankeena abaar xun baa maartay ka jirto meelaha qaar mataqaana fatahaad baa maartay ku dhacday oo daad biyo ku fakaday dad baa guri la'aan kuwa waxay cunaan la kuwa mataqaana dhar ay xirtaan la marka qofkii ka waran intuu mataqaana $50 uu soo shaqeynayay oo mataqaana xoogiisa xalaash ahayd sidoo raba ku soo kasbado uu qof hal habeen heesayo oo laga yaabo in dambi ka weyn maartay uu meeshaas kala tago ka waran qofkii lacagta $50 meeshaas ku bixinaa intuu qof maskiina qaraabadiisa masaxta Soomaalida kale islaamnimo uu maartay ugu gargaari lahaa بسم الله الرحمن الرحيم شخصيga asaga waxaan leenahay saan soo sheegnay dambi ayuu ku dhacay macaasidana yaraan male in laga toobad keeno way waxay ahaato ha ahaato maxaa yeelay nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis saxiix buu wuxuu ku leeyahay dadku dambiga waa ku dhacayaan hadayna ka toobad keenina haday waxay ku xasri ku noqonaysaa qiyaamada dushooda ku noqonaysaa oo kuwa ka qoomamooda oo maxaan u sameeyay dhahay noqonaysaa laana ilaahay cadaaladiisa waxay gaari doontaa inuu kala qisaas qaado rida seeman iyo rida geesaha leh ninkan baahan ee muslimka ah xaqaas asaga iska leh xaqaas qofka baahan baa iska leh meel kasta dunida ha ka joogo inaad ku bixiso maxay ahayd show la dhigayo iyo haween ajaanib iyo rag ajaanib meel isugu keenay waxa ka khayr badan inaad ku bixisid qofka baahan nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qof beer kasta oo qoyan wixii loo siiyo waa sadaqo beer kasta qoyan wixii la siiyo waa sadaqo hatta wuxuu ka sheekay nabiga kaleey salaatu wasalaam bani israa'iil gabar kamida oo zaaniyad ahayd inay macnaha ku janna gashay ay waraabisay ay sakaraad aragtay ceel bay gashay biyay ku soo qaaday qofeenkeedii kabaheedii way ku waraabisay nabigu wuxuu yiri ilaahay waa u dambi dhaaf saasina macnaha ila janno ku noqotay qofka asaga marka jannadii waxa laga yaabaa inay kontonka kaga xijaabantaa laga yaabaa marka qofkaas waxaan leenahay arintaas kontonkaas yuusan cadaab kugu noqonin
quu anfusakum wa ahliikum annaguna waa uga digayna ehelkanaga iyo dhammaan asxaabtanada iyo dadkaan naqaano qofka asaga inuu ka toobad keeno arrinta ayada ayaa looga baahan yahay oo uu ka qoomamoodo oo ka xumaado toobada shuruudeeda ka mid ah inuu qofku arrintaas ayada dib u sameyn mar dambe uu cazimo ka qaato go-aan ka qaato jazaak allah su-aasha kale ku xigta waxay tahay haddii qof aad la shaqaynayseen mise meel aad wada joogteen oo hadiyad kuu keeno hadiyadiina qofkii mataqaanaa uu kuu soo hibeeyo oo isaga kugu sharfaa kuu keeno laakiinse isaga Christmas present oo kale ay ka tahay adigoon qofkii mataqaanaa qalbigiisa aan xumaan waxba aan dareensiimeyn sideed mataqaanaa ugu sheegi kartaa uga dhaadhicin kartaa inay waxan diintaada ayna ogoleen oo mataqaanaa haddii uu hadda uu ka qaatana mataqaanaa uu diintiisa ay dhibaateynayso siduu qofkaas uga dhaadhicin karaa oo maarata waxa ugu sheegi karaa bismillahi raxmaani raxiim arrinta ayada waa arrin iska yar adag markii la fiiriyo khaasatan dadka isla shaqeeyo kaleeta waa arrin cuqdad iyo dhibaato keeni karta laakiin diin markii loo imaado qofka islaamka inuu tanaasulo oo diintiisa uu ka durko oo uu yidhaho qofkan raalli geli saan soo sheegnay xadiiskiibuu ku dhacaya nabiga calayhi salaatu salaam uu yidhi qofka ilaahay ku raalligeliyo ummadda caradooda maxaa rabaa qofka ilaahay ku raalligeliyo ummadda caradooda ilaahay baa raalli ka noqonaya ummadda ha kuu xanaaqda hadday rabto laakiin ilaahay raalli geli allah ka weyn خالق رالي قلي مخلوق رالي قلي إله رالي قلي كان مخلوق واحد رالي قلي كان مجرد حتى حداد وناك استوسم يسيد والله وده قديد وأنا عردي سواس كديار يدقال كيس مركا أرنت سيدا مركا قلوين كاس أد بيوير أدكت هاي لكن وحالنا إنه كفر سنة يجنا صدّه أي أفهم سيان إنه إسلام قبين وحنا وكلاته وقبل لبع عيدود عيده هذا وفي عينها أنا كذا دعيان سي دقالنا كوجير إلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دينت إلهي وير دتك سي حكمة إيو وعدي إيو وعيد إيو دتك هلو شيء لكن معناها سي لقوا عايو أما لقوا أفلقا ديما هو إن قفك نفس دي صلى الله عليه ورنيو شرعي ونو سيدنا وقباء أنه أرنتا وحن كامل سنة عيسى إنه سويل إلهيهن رسول إلهي كم إذا هو إلهي إنه أصدر بنو إسرائيل ونهدنا حالات دي سوء السماء وثالث وجوجو وإلهي سود جدا آخر الزمان دجالنا أسق ودلي دونه ساسنا والنبي كوي هيبان آمن سنة إنه يرهال ربا لكن تنازل أنت سميسيد هذا سجل لدي جتيد ما حفلة دي حقه فرح قليل بين نقوني ساسي معناها فرح قليل ده إلهي بتكعريسين سمرك أنت على السكيل اللي فيها إن شاء الله شيخ إن شاء الله واحد سوق قارن قبدي maxaad kula talin lahayd dadka hadda go'aansaday ama mataqaana doonay inay aadaan xafladaha sanadka cusub meel baa ka dhacaan wadanka Mareykanka ha ahaado Yurubta ha ahaato Afrika ha ahaato Asia ha ahaato qofkii qorsheystay oo niyadda ugu jirto hadda inuu xafladaha iska qayb galo oo $50 uu bixiyo maxaad kula talin lahayd oo dardaaran maxaad siin lahayd bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala awalan وصيتي وإليكم تقوى الله جل وعلا وحيدين دارنا يا عبد الله سبحانه وتعالى إني قلبنا كوينات إلهي أنكحشونا ملك أينما كنا ملك استون أدونك الجوجنو ولو كنتم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إلهي سبحانه وتعالى وحليها إلهي كنا كحشونا كعب صدا وقال جيرودو إن جرتو مال إلهي لإنهور كين دوننا جرتو ولو صرد درب أدوش كفوشان معناها كما فكني سيدوي مركا مالين كاس قيامة نكست إنه كعب صدو وإلهي وهو يستاق دون أسوق قاون أسوق قبلان أسوق بوريدي قبا رجيها وين لا يسدح تاجني هاي نكست عمل كيسي ليد كيسي كبحي ولك جليو هيركو دنبي جيسها وقصوا الله بني ولا قيو مالين كمان إلا حسوسنا هذا دتك حفلتها النوع عاصو كلا كم مشغولنا وحالنا إلهي دينتي سبرشيدي سكون مشغولة جهل إلهي ما أقول إن لقوا عابدو بنو إسرائيل يا نصارى لقد ديدي نصارى لقد ديدي جهلي بنو إسرائيل لا يقول علمي قلبي كتنتين مركا يعني لشبيه لبضع قلوب إن لشبه لما ربه قفك إسلام كوينو يراه روحاني محلال با محرام با شرع إسلام وحكي قبطة النبي عليه الصلاة والسلام وحا صحيح كا إنو يري عملك بني آدم كما أنصحي إلا صدح بعلماء والشر ديان النبي عليه الصلاة والسلام صدح ذا سوكو سلي وحكم ذا إن لو لدن لي وحا إلهي درتي مركو هري دي حفلة أيضا مركا سند بالغو عابد إلهي درتي ماها مرك كو وإن معناها إخلاص وإن لو سميها مركو كوبات وإلهي درتيها اتباع وإن لا سميها نبي محمد ما سميه ما سمينين هذه نبي محمد لقوايو وإن سميها خلفاء الراشدين النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كيري تمسكوا بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بنواجد قبصد السنة وضد خلفاء الراشدين جوز دنبيتك كوقانين وكو قبصد النبي إلا ما فكر وحي جوز كدنبل الجليل ما دام مرك النبي محمد وسنسمينين الإيمان بالله إن الله وإخلاصنا لجوا وحوا باطل بين قونس مرك قفك مسلمين تمحلنا هاي ملك استود جوكتامبا
ciidaha iyaga ah dee gaalo waad aragteen ciidaha nagana lama dhigtaan oo maalinka naga hadda kuma faraxsana maxay ahayd kuma qanacsana nooma imaadaan oo wax naguma darsadaan annagii unbaa daba soconna weli nabiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu la tatabicana sanana man kaana qablakum waad raacaysaan ummadihii inka horreeyay wadooyinkoodii shibran bishibrin taaka wadiraacan bidiraacan dhudhudhun xataa low dakhaluu xijra dabbi la dakhaltumuuh hadday galaan god maasaha luguley hataa waad gelaysaan maasa cagaley godkeeda hadday galeen xataa waad gelaysaan qiila man yaa rasuulallah qaala alyahuud wanasaara sunnada iyada waa sunno soo jirta weligeedba inay muslimiintu tanaasul intay sameeyaan gaalo raacayaan nabigaa sii sheegay calayhi salaatu wasalaam inay ummadaha qabiilooyin ka mid ay gaalada ku biirayaan nabigaaba soo sheegay qiyaamo ma dhacayo nabigu ilaa ummadayda qabiilaad ka mid ay gaalada si toos ah u raacaan marka dhaqan baa hadda Christmas lagu dayan laga raacay happy new year baa laga raaci hadba jiil buu u bedeli markii waxay soo bixi inay noqoto inay ka fadli badnaato ciidihii rasmiga ahaa ومع ذلك أنه وحكى الإسكندر في مولد النبي عليه الصلاة والسلام لو دقي علماء الإسلام كديدين شرعيا لو ما هي النبي يقولنا ما دقين الصحابة دي سنة ما دقين إسكندر وذات كلام مركب وركي يسوي مركا ولبا أن وحوين كجيرين غلوها بكجير لكن قار مركا سي في ريسيت وحيالا في عم بلا سمينا يا سيرة ولا آخرين يا محايا هذه ولا سد عين يا ولا سوء إيمان مسلمين تسبرن كاسة لديدي محايا للنبي وسن كسو جنوي تن مركز دين الإسلام كسلكم ملك وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه إسلام كواحد أنا هين وحي دين كرادينا إلهي كأقبل ما هي أو كذا جسنا ما هي مركز مسلمين تحاول جودين يا نفط يدبا عبسيد ربي سبحانه وتعالى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايوي إلهي عذاب كيسة هي هذه الدحدة وأنا دربي يتاد دقتت وهي بفعل أوامر الله واجتناب نواهي إلهي أمر هذه سول فوليو نواهبتي سول لجهر وي وحكارب ولا جهر فعل هذا وسمير ولا سمي أنت سوي تقوى الله سبحانه وتعالى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وي إلهي أمر هذه سول ياله نواهدي سول لجهر تقوى الله وسده يدا وإن لا سميستا وقاية فاتقوا النار ولو بشق ثمر النبي عليه الصلاة والسلام نار كدور صدا ولو بشق ثمر تمر قبل كيد بالله كجا دور معناها عمل وناكسن كجا دور سناك تمرك نارت عمل وناكسن كجا دور كجا شامو عمل إلهي كود وينيا وبري إلا واحد سميس هذا هو المام ما أنت هم لين المركة إن بدبادي سيد لا تحسب الأنساب تنجيك من لدى ولو كنت من قيس وعد مدان قف دتك يسون لين إني بدبادين يان نصب كوضا إيه شرفت كوضا وحسن كوب بدبادي مهيان تقوى الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام بسيدو يري إن الله لا ينظر إلى صوركم إلهي سورة دين أيج مهيو ولا إلى إسلامكم جركين أيج مهيو أنتم لا أيج هاي يقروح دي سيء سورة دين منا ويقرحان قبلنا ويلكم ما إلهي أيج مهيو ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي وحي أيج قلبي واحد كو هيسان يعمل كفرها كل جتان هذا عمل كنا هذان كريسمس كور عنا ينهب النية قلبي أنا أنه كتاجر محاهر مرك مرحبا مهارين مرك لا تتبعنا سنن من كان قبلكم من قرينا وان راعينا ايغا raadadkoodii marka ficiladaas oo dhan waa muxdathaad gadaal laga keenay oo diinta islaamka lagu burburinayo iyo dhaqamada islaamka oo fiican lagu burburinayo ciidaha naga ayaan ku faraxsanahay ku qanacsanahay sharciga naga uu noo ogolaaday ummadda islaamkana waa inay saa ku qanacsanaataa qof kasta oo muslimna waa khasab inuu وهجانسنا إلهي أمر كيس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلهي هدو أمر جوي الرسول كان وأمر كأسجل لي ماذا أمده أشياء قفك مؤمن ويلك مؤمن كجبر مؤمن كمؤمنات اختيار يدور الشو يلو يركقاد شيء يكهذا البما بله على الرأس والعين سيدا يكون قاضنيا هذا بالله التوفيق صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم جزاك الله خير. بارك الله فيك وإياك إن شاء الله جزاك الله خير أحسن الله إليك. Be conscious of your maker and think of what you have prepared for presentation. So I will present the deeds that I have put forth, and so will you. You need to know whatever deeds you have put forth, you will present them in a package. Now people are asking us, I want to give a gift to this man and to that man. Can I give a gift? It is the occasion of Christmas. And I want to give a Christmas gift to my friend, and we tell them, my brother and my sister. Let me explain to you logically. You have chosen to be a Muslim. Muslim means one who worships Allah alone and considers association of partnership with Allah as the highest form of blasphemy. Do you understand? So if you're a Muslim, you believe in Allah alone, and any association of partnership with Allah is the highest form of blasphemy. So if it is the highest form of blasphemy, when people have considered someone a son of Allah, and the Quran tells you
تكاد السماوات يتفطرن. Allahu Akbar. Allahu Akbar. The skies are about to rip apart because of the statement that they have uttered. Allahu Akbar. If you look at Surah Maryam, towards the end, Allah subhanahu wa ta'ala makes mention of a powerful verse. He says, how could they have said that I have a son? And they are insulting Allah by saying that Allah has a son. The earth would like to crumble and the sky would like to split because of the seriousness of that crime. And yet we want to take a gift and say, have a happy day associating partners with Allah. Do you understand why, as Muslims, it would be wrong for us to take a gift? We are taking a gift and saying, my brother, you have associated partners with Allah. Allah says it is the biggest blasphemy against Him. But take this gift, it's okay. From me, I'm a Muslim. Allahu Akbar. Can we understand and realize why we are going wrong? The same would apply if we were to give someone a gift of Diwali or tell them Happy Diwali, for example. What we are actually telling them is, I am really praying that you enjoy your day associating partners with Allah, and this celebration you have of the entire association of the greatest and worst of partners with Allah subhanahu wa ta'ala, I'm telling you, have a happy day, you deserve the enjoyment, and here's my gift. May Allah safeguard us. We would like to present a gift to someone upon their sin and crime. We'd rather change the statement and tell them season's greetings. We hope you have a better 2013. You know, a few days ago, someone said, oh, it's a very special date, 12/12/12. Subhanallah, I'm sure you saw it. The 12th of December 2012. What is so special about it? Do you know what's the date today? Do you know what is the date today? 1, 2, 3, 4 in Islam. The Sharia date, the 1st of Safar, 1434. Did you know that? We don't know it. Why? Because to us a date is no big deal. Allahu Akbar. Your date of birth or death is chosen by Allah, not by you. And Allah subhanahu wa ta'ala does not require you to have been born on 1, 2, 3, 4 in order for you to be blessed. No. The mere fact that you have tried to achieve the pleasure of your Maker in one way or another, that is what. And many Muslims who have friends, colleagues, neighbors living with Christians, Hindus, working with them, and because they celebrate these events, many Muslims, they're also tempted into taking part in such celebrations. Now these celebrations like Christmas, Easter, Diwali, they aren't just any old rituals. They have religious significance, and as Muslims we have to be very careful in how we participate in such events, how we deal with our colleagues, how we deal with our neighbors. Obviously we have to be good to people wherever we go. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Guide us to the right path. Similarly, it is very important to understand the limits of that path so that we don't get distracted and we don't go over the borders in which will lead us into kufr, into Christianity, into Judaism, into other beliefs. So Christmas is a testing time for many believers, and people should be careful in how they deal with their non-Muslim colleagues. If a person wants to wish them well, then perhaps what could be acceptable is for a person to say, I wish you the best. And here, when he say, I wish you the best, to me, obviously the best is Islam. So I wish you the best in terms, and his intention should be, I wish that Allah give you guidance. I wish Allah open your eyes. I wish Allah opens your heart to acknowledge and accept the truth. So where you are saying, I wish you the best, that person might understand it to mean you wishing them best in terms of their celebrations in their festival, but you are wishing them the ultimate best and the pure best, which is Islam, which is guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. So may Allah guide us, and may Allah open our hearts, and may Allah give us, subhanallah, may Allah give us a proper understanding of our own deen. maanta uga hadlaynay Christmaska iyo sanadka cusub ayaa waxa aanu ku soo gabagabaynaynaa intaan mar dambe hawada uga kulmi doonaa duu Ilaahay yiraahdo usbuuca dambe iyo sabtida soo socoto waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.